السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتي كحران برحيق بلشدة قرحان يوتيوب كيغا سودو هذا صاحب يال مر walba waxaad iga barateen inaan idinla wadaago wixii bulshada ah ee markaa jira ee dhalinyarada ay ka faa'iideysan karaan hadday noqoto waxbarasho hadday noqoto waxbarasho koorsooyin gaagaaban certificate-yo meelo fiican oo laga heli karo hadduu qofku short course qaato waxyaabahaas oo dhan iyo shirarka caalamiga ah iyo dhammaan isku wada dar waxaad ogtihiin sanadkan inaan fursad u abuurnay hadda sii dhamaanaya sanadka hadda sii dhamaanaya 2023 in ka badan 300 oo dhalinyaro ah kuwaasoo ka faa'iideystay programmadaas oo dhigay alxamdulilah ilaahay waa mahad iska leh idinkuna waa mahadsantihiin inaad jirteen oo ka faa'iideysateen waan inii mahad celinayaa sidoo kale waxaan asbuucii hore asaasnay madal dhalinyarta ku midaysan yihiin oo la yidhaahdo Somali Youth Horizon taas oo aan ugu talagalnay madal dhalinyarada runtii Soomaaliyeed meel walba ay joogaan ay ku midaysan yihiin oo runtii wax weeyaan ka caawin doonta waxyaabo badan oo dhalinyaradeenna ay u baahan yihiin dhanka xirfadaha ah iyo dhanka dhammaan barnaamijyada caalamiga ah ee ka faa'iideysan karno oo adduunka ah maantay waxaan inii wadaa saaxiibayaal fursad kale oo aad u muhiim ah sida ciwaan ka soo aragteen fursaddan maanta inii wado hal sano ka hor horta waa la wadaagay laakiin mostly waxaa muuqata dhalinyaradu inay si fiican u fahmaan maanta waxaan rabaa insha Allah inaan si fiican aan uga hadlo waxaa jirta platform ama hay'ad aan dhahno oo ku taala dalka Germany taas oo qofku waxa la dhahaa Kiron marka hore qofku waxay xiriir la leedahay platformyada online-ka ah wax laga barto sida Coursera oo kale Coursera qofka dhalinyarada ah maanta raba inuu wax ka barto waxa lagu xujeeyaa badanaa lacag laakiin qofku hadduu rabo inuu wax ka barto cilmi baa yaala shahaadana way bixiyaan intaas marka laga yimaado hay'adana maanta inii wado waxay kaa kaafinaysaa lacagaha ay ku weydiinayso Coursera haddaba haddii aad tahay qof dhalinyaro ah oo ku dhiban inuu Coursera shahaado ka qaato ama koorsooyin uu ka qaato oo lacag la weydiiyo maanta waxaa ku hayaa fursaddan ay bixinayso hay'adda Germany hay'adda ku taala dalkan Germany ee la dhaho Kiron hay'addan waxay kaa kaafinaysaa dhammaan ay ku ballan qaadaysaa ka kafaalo qaadaysaa in aad wax ka barato mataqaanaa Coursera marka hore waxaad samaynaysaa Kiron baad codsanaysaa ilaa 3 cisho ilaa 10 cisho gudahood ayay kugu soo aqbalayaan Gmail-ka ku xiriirista Kiron ayaa haddana waxaa ku xiray markay ku soo aqbalaan waxaad isla Gmail-kii gelinaysaa login dhehaysaa akoonkooda Coursera kadibna saasay kugu furmayaan casharada dhan muddo hal sano ah haddaba insha Allah saaxiibayaal isla arkeynaa aniga ujeedaan Gmail-kayga waa kana way soo aqbaleen oo sanadkan waxay soo aqbaleen bishii labaad sanadkan alxamdulillah wax badan baa ka faa'iiday kursooyin badan baa ka qaatay horena waa usoo dhigay laakiin dhalinyaradu waxay wax moodaa inay fahmi waayeen su'aalo badan iga soo weydiiyeen marka waxaan rabaa insha Allah inaan dib ugu noqdo oo qof walba insha Allah ila socotaaniin step by step insha Allah waa mahadsantihiin emailkana kula ku soo dhici doona arkaysan laakiin saa ii fahanto horta aan browserkeena soo furano halkaas markaan soo furano halkan waxaan ku qoraynaa Kiron haatana Kiron Open Higher Education halkan markaan ku dhufato marka waxaan arkaynaa shuruudaha loo ka baahan yahay waxyaabahaas oo dhan aan ku dhufan halkan saa u imaanaysaa halkan markaad timaadid shuruudaha hadda horta kuu sheego shuruudaha lagaga baahan yahay si aad hay'addan Kiron u xiraysato waxaa ka mid ah passport Soomaali ama card ID qaxootina haysato oo refugee ah kadibna wax allaala wixii aad rabto insha Allah ka baran doontaa markii ay ku soo aqbalaan waaya marka hadda waxaynu samaynaynaa Kiron inaynu codsanno markaynu soo aqbashana sida Coursera lagu xirto dhammaan way tagi doonaa waaya halkaas aynu tagaynaa si aynu u codsanno hay'addan Kiron oo ay noo soo aqbasho oo nooga bixiso lacagta aynu weydiinayso Coursera waaya halka markaad timaadid
halkan aad ku dhufanaysaa register with email laakiin qaybtan haddii aan hore halkaas aad ku dhufanaysaa. Okay, registration aan sameynaynaa. halkan markuu ku keeno waxaad gelinaysaa markaasi gmail cusub oo tusaale ahaan ani waxaan gelinayaa hadda gmail cusub baan gelinayaa oo gmail cusub hadhowdiina markaan coursera codsanayo waxayna tusayaa gmailkayga horaan gelinayaa oo ay igu soo aqbaleen. marka dhammaan waan insha allah isla soconaynaa. waayahay halkan marka gmailkaan gelinay register baan leenahay. halkan marka ku dhufato marka gmailka ayay fariin markaasi kugu dirayaanin oo activate ah in active garaysid gmailkaas. kaasaan marka sugaynaa waa active garaynaynaa. waayo hadda waxaan tegaynaa gmailka waxaynu fiirinaynaa bal fariinta markaasi ay noo soo direen. halkan haddaan saan sameyno halkan waa noo soo direen. soo gmailkaas kusoo diraa markan kusoo diraa marka halkaasaa ku dhufanaysaa oo active garaysid. halkaasaad ku dhufanaysaa linkigaasaa ku dhufanaysaa. linkiga markaad ku dhufatid kadib insha allah waxaa inoo xigaya in processkeena aynu soo dhamayno. waayahay insha allah hadda waxaan sugaynaa in uu mataqaanaa si toos ah Chrome iskaga diiwaangelino. halkan marka uu keeno waxaad markaas samaynaysaa inaad magacii iyo magacii labaad wixii dhan ku qodho. tusaale ahaan halkan waxaan leedahay hadda baahiye halkan idhi halkan waxaa idhi baahiye maxamed ka socday xaggee baad yaa tahay adigu saxee ka timaaday. waxaan ka imaaday ama ku noolahay daarto Soomaaliya qodmayso Soomaaliya inaan saa u raadin waa marka Soomaaliya halkaas saa u raadinaysaa Soomaaliya baan ahay Soomaali baan ahay. soo waxa soo wadanaha markaas waa wadano ogolyahay soo codsadaan. Soomaaliya watana halkaas ku dhufanaysaa marka. haddana wuxuu ku yidhi hadda xayo ku nooshahay meesha ku nooshahay. tusaalaha kale waxaa laga yaabaa inaad Soomaali tahay meesha hadda ku nooshahay. tusaalaha waxaa laga yaabaa inaad Soomaali tahay passport Soomaali haysato laakiin dal kale aad ku nooshahay. marka waxaad gelinaysaa meesha hadda ku nooshahay meesha dunta waa haato. marka meesha daarto Uganda gelin kartaa, Rwanda gelin kartaa, Kenya gelin kartaa, meel walba oo caalamka ka joogto. Ethiopia gelin kartaa, Djibouti baa gelin kartaa. marka meel walba caalamka ka joogtid ayaa markaas wax weeyaan aad gelinaysaa. haddana Kenya joogaa Kenya gelinaya. halkan marka waxaad dooranaysaa genderka male iyo female gabadh iyo wiilka aad dooranaysaa. then halkan waxaad gelinaysaa marka lambarkaaga furaha ka horeysiinaysaa 252 Soomaaliya way Soomaa. marka sanadka haddana Kenya joogaa waxaan leeyahay lambar Kenya geli waan leeyahay. for example Kenya markaa gelitid lambarkaaga marka Soomaaliya marka 252 waaye. tusaalahaan kale lambar Soomaaliya saasaa leedahay 252 lambarkii kale ka saasaa leedahay. haddii waxay kala duwan yihiin badanaa waqti Soomaaliya ayaa kala duwan. hadda Soomaaliland joogto 63 waaye saasa 63 halkaas isku qoraysaa. haddii aad joogto maxaa ahayd Puntland waa nin hadda joogto Muqdisho 61 saasa ku dhantahay. marka insha allah saaxiibay halkan markaan ka naqaaqno waxaad gelinaysaa waqtiga markaas aad dhalatay ee gelinaysaa waqtiga dhalatay gelinaysaa. waqtiga dhalatay markaa gelisid waa ka soconaysaa. then haddana waxaad gelinaysaa waqtiga waxaad gelinaysaa salaana kale ka imaanaysaa bes continue baa leedahay. waay halkan wayna keenaa marka halkan markayna keenay continue get start baa leeyahay. marka get start marka halka wuxuu ku leeyahay sawirkaaga soo geli waxyaabo soo geli dhaanay samayso waxyaabo uma baahan. halka markaan nimaano ayadana tan hadda aragtid waa get start sii dhihi kartaa. sorry get start sii dhihi kartaa halkan uu keenaya. halka markaas la marayna marka sorry halkan markaas la marayna halkaas marka qaybtaas halkaas qaybta soo furanaysa faayo maxaa magacayga yaala profile ka soo ma
isla profilka aad ku dhufanaysaa marka. Profilka markii aad ku dhufato oo korkiisa profilka ku dhufato then waxaa markaa insha allahu kusoo baxay waxay tahay waa kan informationka ay soo baxay Kenya ku qortay caasimadii ma sheegin waxaan qoray mail waa kan lambarka waqtigaa dhashay Soomaaliya inaan ka imaaday waa ka soo xigay Soomaalkiisa country haddana aan ka joogo lambarka aan geliyay waa kasta gmailka haday gelina waa kasta wax oo dhan way xogta dhan marka saa ku saaro halkaas wax soo gelinaysaa documentskaaga salahan hadda passport Soomaali haysto passport Soomaali soo gelinaysaa hadda kaar qaxooti haysto kaar qaxooti soo gelinaysaa inta sala ay baahan yahay bes wax kale lagama baahna halkan aan ku dhufanayaa halkan marka saa ugu dhufto halkan ku sii dhufanaysaa click baa leedahay halkan marka click dhahdo waxa tagaysaa markaasi documentska soo qaadaysaa waayahay waxaan maxaas ka soo qaadaysaa ama hadda salaan kale waxaan rajeynayaa for example baan marka soo qaadayaa for example ayaan soo qaaday kana hadda salaankaas ka soo qaatay example kana geliyay hadda Soomaalikiisa ka marka geliyay akoos kaarka Soomaalikiisa kaarkaas laga baahan yahay Kenya refugee card waa kaasa UNHCR waa kaasa UNHCR card waa kana iyo passport Soomaali way passport Soomaaligana ama passport Soomaali gashanaysa ama ID gaas gashanaysa laakiin passport horta sideeda ma ogtahay Soomaali waxa lagu tiriyaa markaasi wadanada soo koray marka dhammaan dhalinyartii hadda aan u gudbiyo dhan passport Soomaali ku xiriirsan waan helay marka hadii kaar qaxooti haystan waasifa way halka markaan gelino documentski waa geliyay summit baa iro ujeedeen saasa markaasi waxaan ku dhameeyay shaqadeydii marka waxaan ayagan waxa weeyaan aan ka warsugayaa Soomaa ayaga ayaan ka warsugayaa marka qaybtaan halkaas kiro nooga dhamaatay waan codsanay saasaan ku deynay marka waxaan u baahanahay markiina la soo aqbalo sidee ayaan Coursera ugu xirayaa salaan kale hay'adda kiro baa ku soo aqbashay waxa ku tiri waa u qalantaa waan ku aqbalnay anaga lacag ka bixinayna Coursera wax ka baro 2 sano wax ka baro labadaas sano faculty kasta arabta u baahan tahay ka baro xirfad kasta u baahan tahay ka baro way halkan mar ku dhufanayna halkan mar ku dhufano halkaas waxaan ku qoraynaa marka Coursera saarahan kale waa tan Coursera halkan marka Coursera aan sida ugu qornay qaybta u horeysa way ayadu waa ku dhufanaysaa marka Coursera waa ogtiin institution platform oo wax weeyaan caana oo 2012 meelaha la asaasay oo dhammaan jaamacadaha adduunka oo dhan ay soo geliyaan waxbarasho sanad kale Coursera mar ku dhex jirtid wax ka baranaysid waxaad sameynaysaa jaamacadaha wax ka baranaysaa ama jaamacad Canada ku taala ama jaamacad Yurub ku taala ama jaamacad Mareykanka ka baranaysaa si free ah baa marka xirfad ugu baranaysaa shahaado la aqoonsan yahay oo jaamacadda Coursera ku siisay ah bayna ku siinayaan waayo marka halka markuu saa ku keeno oo qaybtan aad timaadid oo ay ku dhaxaneen kiron ay ku soo aqbasho oo ku tiri walaan waan ku aqbalnay waxaana ku garanay inaad tahay qof u qalma course-kaas marka halan ka gal marka gmailka ay kugu soo diraan marka gmailka waxay kugu soo dirayaan kiron inay ku aqbashay 10 cisha sugaysa markii ay ku aqbashay marka halkan ay ku keenay Soomaa hadda waa arkaysa meesha ku dhuftay oo waan Google-han geliyay halka marka ay ku qoran tahay login baa ku dhufanaysaa halka waxaan gelinaysaa marka gmailka aad gelinaysaa salaano kale gmailka hadaan geliyo kale aniga ma ogtahay gmailkaygi waagi igu soo aqbalan hadda gelinay way gmailkaygi hadaan geliyo Mohammed basirkan gashanaya halkaas marka aan geliyo marka qaybtan wuxuu leeyahay marka waxyaalaha square-kaas select gare saddexdaas way aniga marka waa ay furmatay saa u jeedaanin adigana saas hadhow loogu gelaysaa lacala markii lagu soo aqbalo way 10 cishana kama badna waa ku soo aqbalayaan 100% waa la hubaa halka maxay ugu qoran marka hadda kiron iyo Coursera waa calaamadii Coursera Soomaalikiisa Coursera way halka marka saa u keento marka ilaahay wuxuu kuu fududeeyay xirfadihii aad baran lahayd way hadda maxaa xirfad rabtaa inaad baratid niyadaada maxaa ku soo dhacay wixii doonta baa salaam kala nutrition geli
waxaan gelinaynaa solution markaa geliso kuwaasa waa 938 kala duwan ayaa ku jira waa cilmi dhan oo halkaas ugu jira nutrition database Yale University waa Mareykanka ku taala tana bixinaysa jaamacadan college waaye jaamacadaha Yurub ku yaalan saasa marka u sii wadaysa fahmaysa saasa u soo saasa suuqaas xoolihii waxyaabihii ayuu dhan qaybo la sameeyay xoolaha waa jirta dadkiina way jiraan marka halka marka waxa ku qoran waxay soconaysaa waa halkii barnaamij la soconaya 60 minute less than 2 hour 1 week 4 week ilaa 3 bilood ilaa 6 bilood ayaad ku dhamayn kartaa dhammaan programada waxa weeyaan ku jira way halka marka laga daawan imaano maxaa kale aan gelinaa hadda maxaa kale niyada aan ku soo dhacay geology ma gelinaa geology way geology aan gelinaa hadda geology ka soo jeeda Soomaaliya waa 434 program oo kala duwan oo waxa weeyaan soconaya wuxuu u dhaxayaa week ilaa 4 week 1 month ilaa 3 months 3 months ilaa 6 months u dhaxayaa soo fahmaysa marka waa ku dhufanaysaa waxa weeye adaad baranayo kuwaas waxay tusaale mid baa ku dhufanaynaa halka mid marka ku dhufano sorry khadkayga culus halka marka ku dhufano enroll course hadaarto dhihi kartaa Today I'm going to demonstrate your assignment for this week, which is to explore your local geology. In this assignment, we're going to ask you to select a geologic feature that's of interest to you, that's nearby and easy to get to. Then we're going to encourage you to visit that feature and to make observations and to document your observations with notes and also photographs. And then we're going to ask you to share your observations, your notes, and your photographs in the forum with your fellow classmates. 1 week In terms of tools and materials, you absolutely will need to have notebook, pencil, and camera. These will be essential. In addition, you might be able to take advantage of a hand lens, which will allow you to look at your rock samples up close, observe the mineralogy and the texture. You also might be able to take advantage of a compass if you have one, Brunton compass, that allows you to measure the orientation of maxaan kale ku qornaa bal hadda wax kale noo sheeg maxaan kale ku qornaa maxaa kale u baahan tahay medicine ku qornaa medicine akaasa medicine soo markis waa 3 bilood ilaa 6 bilood 1 week ilaa 4 week 3 month waa kuwaas medicine sorry marka enroll course waa si dhihi kartaa halka marka soo sii baxdid salaam kale waxaan ku sii qoraynaa oo kale maxaan qornaa public health ma qornaa public way akwaas ayaan saasawas meeshan waxa way adiga lix ka daal ma fahantay cilmi kasta aragtid waa baranaysaa meeshan waxaan ku qoraynaa marketing dadka rabo xaysiyo marketing waxa jecel ayagana ujeeda marketing Soomaaliya waa 21 ayuu automatic program oo ku saabsan noqoto Google noqoto Facebook noqoto waxyaalahaas dhan aragtida marka haysiyo dhan halkaasaad ka baranaysaa way halka ka dhimaano marka maxaan gelinaa marka maxaan kala gelinaa maxaa jeceshahay oo niyadaada ku soo dhacaya inaad baratid wixii niyadaada ku soo dhacaya oo dhan halka ku qor waa ka helaysaa marka saaxiibayaal buu inaan muuqaalkii ku sii badiyo mar hore sorry waxa weeyaan waa inaad hawl gashaan shaqo inoo taala dadku wax barto dhalinyartu wax bartaan xirfado hala barto maanta xirfad kaliya aan leedahay baa noloshaada dhan bedeli karta waxa muuqaalkiina ku duwaayo oo la jeclaaday oo qisadayna ku soo gaaday wax kalena ma kaliya waxay ka tahay walaalaha Soomaaliyeed ee wax weeyaan fursaddeena wax bartaan inay wax bartaan sidoo kale adiga dadka aad garanaysid oo walaalaha kana la share garay marka muuqaalka sida marka hore ku sheegnay waxa weeye kow waa apply garaynaysaa 10 cisho sugaysaa oo soo aqbalayaan sidii Gmailka hawsha u galiya dhig oo dhameynaysaa insha Allah guul baan rajeynayaa anigana isoo dacay walaalaha kale jaamacadaha dhalinyarta dhigta dhalinyarta amalaanta dhalinyarta raba inay xirfad bartaan gaarsiiya ayagana insha Allah si uga faa'iideystaan Allah in sharfo intaas ku joojinaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh